natiijadii shalay soo baxday markii aan maqlay aad iyo aad marna waan naxay marna waan ka carooday marna waan ka xumahay sababtoo ay tahay waa wax aan la aqbali karin dabcan wixii haddii yihiin waxaan la aqbali karin haddii yihiin dhibaatada xaggay ka timaado waaye ma waxaa iskale ardayda soomaaliyeed ee sida muuqata la abuse gareeyey ee victimka ah ma waxaa iskale waalidkii dhalay oo ayagana la abuse gareeyey oo victim ah mise waxaa iskale governing bodygii wixii waxaan maamulay oo waxaan soo saaray ayaa iskale xaqiiqi ahaantii waxaa dhaawacmay oo dhintay oo aan qiimo mihnadeed aan yeela doonin wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya way dhimatay because waxay weysay trustigii kalsoonidii lagu qabay ee ay ku qabeen shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada waxaa soo baxday in wasaaradda waxbarashada ay ku laabatay wadadii iyo jidkii ay ku socon jirtay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya xilligii xukunkii askarta iyo musuqmaasuq iyo maalmihii madoobaa hadalkan waxa u jeedaa intaas ma dhici karto waxaan u jeedaa markii waxaan aan aqriyay waxaan soo xasuustay murugo iyo dulmi waxbarasho oo aniga nafsadeydu aan la soo kulmay xilligii askarta kaasoo ahay ardadii gelaysay kulliyadda waxbarashada la foole ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sanadkii 1982 ayaan ka mid ahaa waxaan ka mid ahaa ardadii imtixaanka gashay oo ku gashay iskuulkaas Sheekh Madar ee ku yaal Kaasa Balaare imtixaanka markaan gelaynay oo anaga qolka aan imtixaanka aan ku gelaynay waxaa nala joogay 2 askari iyo 2 macallin 4 qofna waan waardiinayeen qol kasta oo imtixaanka aan ku gelaynay kormeere kor socdana waa jiray sidaas markay ahayd waxaa jiray dad ay isku soo aadiyeen oo isku soo abaabuleen nimankii madaxda ka ahaa markaas magacooda ma raba inaan sheego dadka Soomaali waa yaqaaniin oo ugu horeeyo wasiirkii waxbarashada dad ilmo madaxeed iyo wixii la rabay ayaa intii la kixiyay ayaa meesha hadda uu ku yaalo golaha shacbiga Soomaaliya oo la dhihi jiro College Naval Somalo iyo iskuulka ku agyeelay Sakhaawudiin ayaa imtixaanka iyaga loo qaaday iyagoo imtixaanka sabuurda lagu qoray ayagoo loogu talagalay inay jaamacadda iyagu ay noqdaan kuwa ugu horeeya oo jaamacadda galay dadka Soomaaliyeed oo kale caadigan imtixaan caadi ah laga qaado waxaa dhacda marka Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ama taqaanaa midka qadirta xukuma imtixaankii markii la soo dhajiyay inta aan jaamacadda la gelin aan raadiha laga sheegin ayaa waxaa laga qaaday wasiirkii corrupted ka ahaa ayaa xilkii laga qaaday waxaa loo dhiibay Cabdiraxmaan Cabdulle Shuuki ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo markaas agaasimo waaxid ahaa isla markaasna ogaa dulmiga iyo cadaalad darrada meesha ka dhacday wuxuu u tegay Maxamed Siyaad Barre kaligii taliyihii meesha waddanka markaa xukumayay arrintii u sharaxay wuxuuna u sheegay inay ka dhaceen meesha wax aan suurtagal ahayn aanu wasiirna ka ahaan doonin wasaaradda haddii aan khalkaas la sixin oo xilkii iska casilay kaligii taliyihii waa qaatay iskuulka waa la kansalay markii la kansalay ayaa qaybta ku xigtay oo dadkii la dulminayay ah oo imtixaankii sida saxda u galay ah ayaa la soo gudbiyey anigu marka waxaan kamid ahaa dadkii dulmigaas ka badbaaday oo uu badbaadiyey Cabdiraxmaan Cabdulle Shuuki oo badbaadiyaan kamid ahaa oo markaa raadiyo Muqdisho laga sheegay magaciisa markii ugu horeeyay iskuulkaas Madar aan ku galay Sheekh Madar ugu horeeyay ardayga ugu horeeyay oo laga sheegay idaacada raadiyo Muqdishona markaas anigu ah saasaan ku kala kulda waxbarashada la fool oo aan kadib aan ku noqday graduate oo maanta aan ku ahay nin aqoon-yahan Soomaaliyeed marka waxa ii muuqda wax u eg wixii ay sameynayeen madaxdii Soomaalida markaas ee faasidiinta ah oo kaleeto inay meeshan ay ka dhaceen taasi waa mid marka imtixaankani wax validity ah oo leeyahay malaha intaas waxaa dheeriya 34 sano oo aan macallin ahaa suurtagal ma aha 4 arday inuu arday dhaco
Hasta ka dhigantaa. ha saas ka dhigantaa yacni waxaa markaa faashil ah ardayga dhacay faashil ma aha ee waxaa faashil ah administrationka iyo nidaamka waxbarasho ee meeshaas ka jira ayaa faasid ah oo faashil ah oo ku fashilmay shaqadiisi marka isku darkaasi wuxuu keenaa marka kalsoonidin lagu qabay inay dhaawacan tahay oo ay sax ahayd inay puntland ay diidaan imtixaankan oo ay qaadayaan dadkan oo faasidiinta ah oo faashiliinta ah Marka laga soo tago aan ku dhameeyo marka waxaa la rabaa marka arrinkaan jirta marka muhiim marka ilmahan lagu cayaarayo oo mustaqbalkooda lagu cayaaray oo marka horena la jaha wareeriyey haddana sidan loogu cayaarayo waalidiintii dhalay waa inay ogaadaan inay ilmahooda ayagu mas-uul ay ka yihiin waa in la maqlaa waalidka soomaaliyeed waa in codkiisa la maqlaa sababtoo tahay ilmahan waxaa dhalay kuwa dhagaxa ka shaqeeya kuwa bajaajka wada kuwa maqaayadaha ka shaqeeya kuwa kawaanka ka shaqeeya kuwa beeraha fala kuwa xoolaha dhala ilmahoodi waaye kuwaan ku cayaaraya oo sidaan systemkan corrupted-ka ah oo faasidka ah wax u maamulaya ilmahooda waxay jiraan america iyo canada iyo ingiriis nimanka waxaan maamulaya oo natiijadan soo saaray oo imtixaankan ka shaqeeyay ilmahooda iskuuladan ba dhigtaan waa maqan yihiin ilmahan waa ilmaha dadka oo leymanka oo masaakiinta ah oo xoogsatada ah laakiin nasiib wanaag dalkan iska leh saas darteed waa inay dadkaanu yeeshaan political conscious oo ay diidaan suurtagal ma aha 8,550 arday oo Soomaali ah inay one exam ay ku dhacaan anagu og systemka dalkan sidoo yahay iyo dawladnimadu sida ay tahay anagu og oo ah goobjoog ah oo arkayna oo maqlayna suurtagal ma aha in 8,550 ubad Soomaaliyeed in la abuse gareeyo ilaa hada xad ma suurtagelin ma dhicin xilligii dagaal ogayaasha oo FBN iyo NGO-du wax maamulayeen dhibaatadan kuma dhici ardada Soomaaliyeed sadarteed waxa la rabaa wake up calling waaye waxay ku tusinaysaa dawladnimo xumada sababtu waxay tahay meeshan dawladda ayaa mas'uul ka ah dawladda waxaa laga rabay adeeg dadweyne inay qabato waxbarashada waxay kamid tahay adeeg dadweyne waa public service marka systemka dawladnimada ayaa faashil ah waa dhibaatadan keena intaas waxaan rabaa inaan ku daraa marka waxaa loo baahan xal baa loo baahan oo dhibaatadan waxaa loo baahan xal sidaan arrintan inaysan ku digto suurtagal ma ah qof aqbalan ma jiro waa in la diido maxaa loo baahan marka waa in la magacaabo oo gaar ahaan haddii uu dalkan dadkan danka leeyahay wixii uu sheegana ay 5% ay sax ahayd madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa inuu magacaabo guddi qaran oo aqoon-yahano ah oo madax bannaan oo arrintan baaritaan ugu sameeya si degdeg ah 33,727 warqadoodna waa in la baaro 114 iskuul ee ay ku galeenna waa in la baaro oo baaritaan lagu sameeyo waxaa kaleeto u baahan in lagu sameeyo imtixaanka ardadan laga qaaday waa in lagu sameeyo evaluation oo lagu fiiriyo xaqiiqa ahaantii imtixaankan ardada laga qaaday ma loo dhigay ardada okay intaas kaliya haddana ma aha imtixaankan ardada laga qaaday maadadiisa macallimiin u dhigta ardada ma loo sameeyey oo ardayga ma la gaarsiiyey intaas waxaa dheeriya ardaygu ma hela environmentiga wax ku fahmi lahaa hadday dhacdo marka ardaygu environmentiga ama deegaanka uu wax ku fahmi lahaa inaan la helin inay dhacdo macalinka wax uu dhigaya ardaygan inuu yahay macallin aan u tababarayn maadadan lagu imtixaan aan u tababarayn markaas waa injustice wax ka jirana ma laha waana useless marka waxaan u baahannahay si degdeg ah dad aqoon-yahano ah oo aqoon leh oo madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda iyo dawladda waa in si degdega loo magacaabo baaritaan ay ku sameeyaan warqadihii imtixaanka waa in la soo hordhigo waa in la baaro intaas waxaa dheeri ah 37,727 warqado arday oo arday kasta marka uu yartahay 6 imtixaan oo galay oo noqonaysa taqriiban 150,000 balaas ay noqonaysaa 150,000 oo beebar see loogu baaray see loogu saxay 40 cisho iyo wax lamida 150 warqadood laanu arday kasta uu garaan 5 maado galay see loo yaa saxay ma macallimiin Chinese la keenay oo lagu keenay maraakiib oo saxay waddanka waa naqaanaa capacity waa naqaanaa waxay ka dhigan tahay macnaha ardadan 33,727 arday oo arday kasta uu galay ugu yaraan 5 beebar imtixaan oo galay laguma sixi karin waqtiga hadda dhacay iyo capacity aan ognaa sadarteed waddankan imtixaan laga qaada ma jiro just useless waa dulmi okay
intaas marka waxaa la rabaa madaxweynuhu hadduu dalkan dadkan danka leh waa inuu magacaabaa guddi degdeg u baaro oona guddigaas noo inahdaa guddi madax bannaan oo aan siyaasadda aan ku shaqo lahayn oona aqoon-yahano ah oo waxbarashada iyo arrimaheeda aqoon u leh hadday tahay ardaygu meeshooda wax ku baranaya hadday tahay macalinka wax u dhigaayay hadday tahay materialka ama boogta loo dhigaaya hadday tahay imtixaanka inay ismaajgarayaan aad rabaa okay intaas waxaa dhiiriya kaleeto mid kaleeto oo iyadana iyadana arrinta kale oo iyadana muhiima waxay tahay marka dadka soomaaliyeed ee dadkan mas-uulka ka ah hadday yihiin oday dhaqameed hadday yihiin siyaasiyiin hadday yihiin culamaa udiin hadday yihiin ganacsato hadday yihiin waxgarad waa in arrinkan laga hadlo waxaan lagu cayaarayo waa mustaqbalkii soomaaliya mar kasta soomaaliya waxaa rabaa dadka rabaa inay ogaadaan mar kasta oo waxbarashadeenu ay broken ay tahay ama ay dhaawacan tahay ama sidaan oo kale loo maamulo oo foolxumadan oo kale iyo qaabdaradan oo kale wax loo maamulo waxay dhaawac ku tahay qaran dhisidda soomaaliya sababto waxay tahay qaran marka la dhisaayo waxaa lagu dhisaa education and economy aqoon iyo dhaqaale and this is the human resource waaye oo la rabo dalkan inuu yeeshto and then intaas waxaa dheeri ah oo idanoo kale arrin kaleeto dheeri ah dalkani ma leeyahay education policy